qadar baa qornaaye hal tufaax oo ka fog ayuu ka tegi waayey wuu tiigsaday laakiin nasiib xumo wuxuu ka soo dhacay geedkii uu saarnaa. lama galaay goobo dadkii galay aan dib loo arag ama naftooda ku waayey. qaybteeda saddexaad hadhaagii daynasoorada Komodo Dragon. Indonesia waa dowlad dhacda koonfurta bari ee qaaradda Aasiya. waa dalka kooban silsilado jasiirada ah oo tiradoodu dhan tahay 17,508 jasiiradood. haddii la cabiro dhererkoodu waa 5,000 kiiloomitir. si loo fahmo dhererka jasiiradahan waxaan tusaale ahaan u bixin karnaa inta ay isu jiraan magaalooyinka Muqdisho iyo Qaahira, labada caasimadood ee wadamada Masar iyo Soomaaliya. Indonesia waa dalka kaliya ee dabeecadaha noocaas leh dunida oo dhan. inta ugu badan jasiiradahan waa kuwa aan dad ku noolayn. haddaba daawade waxaa jirta jasiirad ka mid a jasiiradahaas oo u muuqata inay cidlo tahay. waxay Australia u jirtaa 2,500 kiiloomitir. jasiiradan waxaa ku nool xayawaan la odhan karo waxay ka soo jeedaan ama waa hadhaagii xayawaankii dabargo-ay ee dinosaurka. waa ugaarsada halis badan oo hilibka quuta. dhererkiisu waxa uu gaaraa 2.60 sentimitir. miisaankiisuna waxa uu gaaraa 91 kiilo. wuxuu awood u leeyahay inuu dhiigga ka uriyo meel gaaraysa 9 kiiloomitir. dadka ku nool jasiiradan dhagxaan waaweyn ayay dusha ka saaraan xabaalaha dadka ka dhintaa si aanay xayawaanadani ula soo bixin marxuumka. waa xayawaan dilaa ah oo qaniyadiisa keliya loo dhinto. runtiina ma ahan xayawaan sida libaaxa ku kala goyn kara hal mar ama sida shabeelka dagaal la gala xayawaanka uu ugaarsanayo ilaa inta ay naftu ka baxayso. ee waa xayawaan hal mar qanina dhibanaha uu cuni doono meel dhowna ku suga sida sarkaalka inta ay naftu ka baxayso. daqiiqada kooban ayay suntiisu ku dili kartaa xayawaanka uu qaniinay. si xad dhaaf ah ayuu xayawaankani u cunaa hilibka noolaha. halkii maalin wuxuu cuni karaa hilib dhan 73 kiilo, waana wax u dhigantay 80% miisaankiisa guud. ma jiro xayawaan aysan cunin sababtoo ah waa mid ka mid a xayawaanada loo yaqaano berri biyoodka. wuxuu isku si uga ugaarsan karaa badda iyo berrigaba. tan ugu daran ayaa ah inuu dhirta xataa fuuli yaqaano. waxay u muuqataa inaan meelna looga baxsan karin. isagu xataa isma nabadgeliya xayawaankani. midkooda gaajooda wuxuu cunaa kan uu ka tamarta badan yahay, si gaar ah dhasha yaryar oo dhaqankeedu yahay in aanay bannaanka usoo bixin ilaa inta ay ka korayaan si ay uga badbaadaan kuwa waaweyn ee cunaya. xayawaankan waxaa loo yaqaanaa Komodo Dragon. jasiiradda uu ku nool yahayna waxaa loo yaqaanaa Komodo Island ama jasiiradda Komodo. waana deegaanka rasmiga ah ee uu dunideena kaga nool yahay xayawaankani. waa jasiirad loo dalxiis tago. dad badani waxay u aadaan si ay noloshooda mar keliya usoo arkaan Komodo Dragon. si dalxiisayaasha looga badbaadiyo khatarta xayawaankan waxaa loo sameeyey seere ama deyr maxmiyad ah oo lagu ilaaliyo lagagana ilaaliyo dadka. waxaana loo diyaariyey shaqaale loo carbiyey xakamaynta xayawaankan. keligood ayaana fasax u qaba inay gudaha u galaan siligan. haddaba sanadku markuu ahaa 2009 kalluumaysta reer Indonesia ah oo lagu magacaabo Maxamed Anwar, da'diisuna ay tahay 31 sano jir, kana mid ahaa dadkii ku noolaa jasiiradan, ayaa isku dayay inuu gudaha u galo seeraha lagu ilaaliyo xayawaanka Komodo Dragon. ujeedkiisu wuxuu ahaa inuu geed u dhow siliga uu dhaqso kaga soo goosto tufaax bislaaday oo uu hunguri ka qabtay, isla markaana uu si degdeg ah uga soo baxo meesha khatarta ah. hareeraha ayuu iska eegay inta aanu gelin gudaha si uu isaga hubiyo haddii uu jiro xayawaanka agdhow. nasiib xumo kumuu xisaabtamin in dhererka cawska ka baxay beertan xidhan uu qarin karo xataa 10 xayawaan. si fudud ayuu siliga u fuulay. waxaase arkaysay gabadh lagu magacaabo Teresa Tawa oo ka mid ahay dalxiisayaashii ku sugnaa goobta. waxay isku dartay orod iyo qaylo si ay uga celiso khatarta uu ku socdo, laakiin saaxiibkeen dhag jalaq uma siin. gudaha ayuuna u galay. waxay soo ag istaagtay seerihii si ay uga digto haddii ay aragto xayawaan ku soo socda. Maxamed isla markiiba wuxuu fuulay geedkii midhaha lahaa, wuxuuna urursaday tufaax badan. qadar baa qornaaye hal tufaax oo ka fog ayuu ka tegi waayey wuu tiigsaday laakiin nasiib xumo wuxuu ka soo dhacay geedkii uu saarnaa. cawska dhexdiisa ayuu ku soo dhacay. Teresa oo markii hore indhaha ku haysa ayuu ka qarsoomay. inuu soo kaco soona baxa ayay sugaysay, laakiin uma muuqdo. keliya waxay u jeedaa cawska oo xoog u dhaqdhaqaaqaya. waxay garatay in ugaarsadii halis badnaa uu soo gaadhay goobta. waa 2 ka mid a xayawaanka Komodo Dragon oo soo uriyey dhiigga Anwar kadib dhaawac yar oo ka soo gaadhay geedkii uu ka soo dhacay. waxay bilowday inay u qayliso istaafkii iyo shaqaalihii beerta si ay u badbaadiyaan Anwar. waa shaqaale u tababaran in ay xayawaankan xakameeyaan dadkana ka badbaadiyaan. markii ay gudaha u galeen waxay arkeen Maxamed oo dhowr qaniyo jidhkiisa ku taallo. cusbitaalka ayaa loola cararay, laakiin nasiib xumo jidhka ayuu ku geeriyooday. jasiiradda Komodo waa goob dalxiis oo dunida oo dhan looga daawasho tago, laakiin dalxiisayaasha waxaa looga digaa inay galaan aagga xidhan ee khatarta ah. haddii aad niyadda ku hayso inaad booqato meeshan ama aad caga dhigato beriga jasiiradan, iska jir inaad ka talowda xuduudda.
raac talooyinka iyo tilmaamaha lagu siiyo. wax ku qaada sheekooyinka ka warramaya khatarta xayawaankan ee ay ka mid tahay sheekadeenna maanta. daawade waxaynu soo gaarnay gabagabadii muuqaalkeenna. fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka soo dhowo oo sabskrayb saar. sidoo kale haddaad hore inoola joogtay ka qayb qaada muuqaalkan inuu sii faafo oo layg saar, saaxiibadana la wadaag. mahadsanid.